Kani waa guriga ay Muqdisho ka degan tahay haweeney buddig u ahayd fanka iyo hiddo dhowrka Soomaaliyeed. Hase yeeshee waayuhu uu dhigay halkan, kuna xanuunsanaysa muddo 20 sano ah. Sitiimaano waxa ay ka mid ahayd hablihii safka hore uga jiray kobcii iyo horumarintii fanka Banaadiriga, iyadoo oo waqti dheer ka mid ahayd gobolladii Waaberi gaar ahaan qaybtii Banaadiriga. Waxay ahayd gabar ciyaartooy ah oo marka ay masraxa soo istaagto aad loogu riyaaqo habjiliinkeeda iyo qaabka ay u ciyaarto, taasoo sida la sheegay ay ku kasbatay dadweyne aad u fara badan kuwaasoo sacab iyo qaylo isku dari jiray marka ay ka soo muuqato masraxa. Sitey hadda waxa ay dhibaato ku haysataa dalka gudihiisa iyadoo aan meelna uga bixin, waxaana isugu darsamay xanuun iyo xoolo la'aan aan laga warqabin, mana jirto cid xataa soo hadal qaaday nolosheeda. meel fiican aan joogo gurmaysiiyo ilaa ilmaha hoostooda ama fadhiyo waajibkeedu leeyahay. guri ma haysto maskiintaan ilmaheedaan dhex joogaa, waabtaasaan jiiftaa, waxaan sameey ma haayo, ilaaha waxay sii haayo. fanaaniin dadkan kumurdaayaan cunayaan jaadka cunayaan iyo meeshay ku cuni lahaayeen ay ku murdaayaan, dad wax ma sii haayaan. marka yani qof sallahaan u baahnaa maahan, ilmahaanoo kale ma u baahni. ilaaha khayrku maqan wixii alle isiini waa helaa. Xeradan oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho ayay kula nooshahay gabadheeda Jamiilo Shariif Xaashi. Si kasta oo ay u tahay bukaan sariir jiif ah, iskuna taagi karin cagaheeda, haddana weli isma aanu bedelin xusuusteeda oo waxaa hortaagan waayihii wacnaa ee nolosheedu ay soo martay. maya aboo ma jiro warkaan meelku hore miirka adeege maninkaaga mooyaanta malisoo maraayo. markii meelan aado oo maninkeygu waa la isku soo marmaraamiyaa, miirka adeege maninkaaga mooyaanta malisoo maraayo. daqiiqad kasta oo ay ka hadasho nolosheeda, ilmada ayaa soo dhaafaysa indhaheeda. Tani ayaa muujinaysa sida ay ula kulantay nolol adag. Iyadoo bukaan ah ayay raadraadin u geli jirtay nolol maalmeedkeeda, iyadoo shaqooyinka ugu adag ee qof dumar ah oo da'deeda ah uu qabto ay qaban jirtay, taasoo ah in reeraha ay dharka u soo meeri jirtay ilaa markii dambe ay tabartu dul dhigtay sariirtan. waxaa barbar taagan habeen iyo maalin gabadheeda oo ay ku wada nool yihiin aqalkan cooshada ka samaysan. waxaan la hadalnay Jamiilo Shariif Xaashi oo ah Sitey gabadheeda. xamal wax naga soo bixiyo waa ijaar dhiibis la'aan, xamal naga soo bixiya tabar ah u waaye. hooyadeena maanta wax igu garab galo aniga aan ka ahayn ma jirto, ma fahamtay. ijaara $150 igu gaaray oo ilaahay iiga sareeyay. saan hayaraha badnaada waxa isaga siinayay in baa hadda leegu leeyahay. maanta cilaana aada oo iska soo saartaa alxamdulillah shukr. maanta dan $5 soo waay, $4 soo waay, hayaraha badnaada $1 soo weeymaay, ma fahamtay. hooyana ana u qaraab hayaraha badnaada adi xaaladeena aad alxamdulillah shukr u tahay. laakiin waxaan jeclaan lahay hooyada in wax loo qabtaan jeclaan lahay. waxaa hubanti ah in Sitey iyo inta kale ee fanaaniinta ah ee ku dhibaataysan dalka gudihiisa ay u baahan yihiin caawin ay ka helaan dhanka dowladda. waxay fariintan diraysaa iyada oo rajo ka qabta in ay noqonayso mid gaarta dhagaha dadka ay la hadlayso. waxaan ka dalbahaa walaalahayga cusub ilaahay meeshooda ha kuna jeeyo inay wax ii qabato, hooy isiiyaan, meelan ku adeegtan ii fasahaan. intaasaan u baahday. farmaajo joogaan sheegay, farmaajo gudihii maarkeen ani alxamdulillah shukr. ilaahay meeshii keenaani ha ka dhigo.